السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan barnaamijkeenan ku soo qaadan doonaa goobo la yaab leh oo ku yaala koonkan aan ku dul noolahay kuwaas oo marka laga eego dhinaca cilmiga noqonaya mustaxiil ama waxaan aqliga lahayn. ceelka dhagaxa. ceelkani wuxuu awood u leeyahay inuu u bedelo shay walba dhagax, laakiin maaha si dhaqsa. waxa qasaba in shaygaasi uu hoos yaalo ceelka muddo 2 bilooda. wuxuu ku yaalaa ceelkani agagaarka webiga Neef ee ku yaala waddanka Ingiriiska, wuxuuna jiray qarniyo aad u badan. dadka halkaas degan waxay aaminsan yihiin in ceelkan lagu nacdalay shaydaan, sababtaasna uu sidan la noqday. laakiin arrinku sida uu ka duwan yahay, waxay khubaradu daraaseeyeen waxay ka samaysan yihiin biyaha ceelkani, waxayna ogaadeen inay ku jiraan biyaha xaddi badan oo macdana. marka la hoos dhigo biyahana shay waxa daboolaya shaygaas maadadaas macdanta, waxayna u samaynaysaa dahaadh adag oo u eg dhagaxa. webiga Shanay Timbishka. biyaha webigani waa qaar karkaraya. heerkulka biyahani maaha qaar isku mid ah. meelaha qaar wuxuu gaadhaa 40 digrii, halka meelaha qaarna uu gaadho 100 digrii. waxaan ognahay in heerkulka biyaha webiyada caadiga ayna gaadhin heerkulkaasi aadka u sareeya ilaa uu ka dhow yahay furkaani mooyaane. laakiin waxa u dhaxeeya wax ku dhow 700 oo kiiloomitir webigan iyo furkaanaha ugu dhow. ilaa imikana la garan maayo sababta keensanaysa inay karkaraan biyahani. harada buluuga. qaar badan oo kamid ah dadka dalxiisayaasha ayaa u soo safra waddanka Japan si ay u soo arkaan haradan buluuga ee midabaysan. marka aad aragto biyo caadi ah oo leh midab gooni ah oo lala yaabo, waxa laga yaabaa inaad ku fikirto in lagu dhex walaaqay biyaha maadooyin kiimika si loo nadiifiyo loona soo jiito indhaha dalxiisayaasha. laakiin haradani sidaa maaha, waana mid dabiici ah. si dhaba looma garanayo sababta dhabta ah ee biyahan ay ku noqdeen midabkan, laakiin waxa jirta aragti odhanaysa waxa ku jira harada gunteeda meel ay ka samaysanto milixda lagu magacaabo aluminium. marka ay ku dhacaan fallaadhaha cadceeduna ay samaynayso midabkan buluuga, iyadoo aanu qofna garanayn sababta dhabta. haddana dhammaan dalxiisayaashu way xiiseeyaan imaanshaha goobtan. dhagaxaanta codka leh. haddii aad tagtay mar magaalada Portistan ee ku taalla waddanka Mareykanka, waxa qasaba inaad aragtay dabeecaddan cajiibka. waa dhagaxaan samaynaya cod marka lagu dhufto dubaha. waxa caadi ah in marka aad ku dhufato dhagaxa dubaha uu samaynayo sanqadh ama cod, laakiin tani gabi ahaanba way ka duwan tahay. waxay weerarisay dabeecaddan la yaab kale qaar badan oo kamid ah khubarada iyo dadka leh cilmiga geologiga. marka aad ku dhufato dubaha dhagaxa, waxaad maqlaysaa cod xoogan sida inuu dhagaxu ka samaysan yahay macdan, gudihiisuna uu madhan yahay. jeexjeexyada ku yaala jasiiradda Mauritius. waqtigan la joogo qofna lama yaabayo inuu arko jeexjeexyo ay biyo ka soo qubanayaan, sababtoo ah waxa laga heli karaa ugu yaraan dawlad kasta. ha ahaadaan jeexjeexyadu qaar waaweyn ama qaar yaryar, laakiin ma u malaynaysaa inay jiraan jeexjeexyo ku hoos yaala biyaha. waa dabeecad la yaab leh oo ku dhex taalla badda Indian Ocean-ka una dhow jasiiradda Mauritius. haddii aad ka eegto biyaha dhinaca sare, waxaad arkaysaa inay samaynayaan leen qurux badan oo ku dhex yaala badda dhexdeeda, kana hooseeyaan jeexjeexyadaasi. haddii aad jeclaysanayso daawada inaad booqato meelahan ay soo sheegnay, taabo calaamadda like, nagulana wadaag dhanka hoose ee commentiga halka aad jeclaan lahayd inaad booqato. hana naga iloobin haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaal Cusub inaad subscribe saarto. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.